wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka Somaliland oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera ayaa dhagax dhigay cilmiyood loo hirgelin doono deegaanka Laasciile oo dhanka bari ka xiga magaalada Berbera. ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaana u mahad celiyeen xukuumadda Somaliland oo hirgelin doonta cilmiyoodkan. runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu joogno degmadii Laasciile togi dubeerin oo aynu dhagax dhigayno mashruuc qiimaha iyo ballaarka leh oo 17 kiiloomitir laga soo jiiday biyaha buuraha iyo togagana culayskooda arkayseen runtiina maamul ahaan culays badan ugu haysay markastoo aanu nimaadno degmada waxa koowaad ay nagala hadlayeen bulshada reer Laasciile waxay ahayd biyaha ay ahayd maanta ilaahay uu nagu soo asturay dawladda hoose qayb lixaad la ay ka qaadatay mashruucan wuxuu ku kacay $320,000 $111,000 waxa bixin doonta dawladda hoose magaalada Berbera waana galanaysaan maxay tahay ka qayb qaadashada miisaanka inta leeg waxaan jecel laba qodob inaan uga faa'iideysto qodobka koobaad waxaan u sheegayaa dadka deegaanka ee degmada reer Laasciile ku nool inay fahmaan hantida inta la eeg iyo rafaadka inta la eeg ida loo galay ay halka aragtay looga soo qaadayo biyaha waa iyaga in hantidooda ilaashadaan oo biyahooda ilaashadaan oo ceelkooda ilaashadaan oo ay dar yeeshaan hal mar baa investment loo gelinayaa intaas oo kharash intaas oo lacaga oo ciidan ka badan baa la gelinayaa wixii ka dambeeya waxba la ninkeedu weeyay dadku aad iyo aad bay ugu dhibanaayeen inay maxaan ku raday biyaha nadiifta helaan alxamdulillah maanta ilaahay baa mahad leh ilaahay baan ugu mahad celinay noo suura galiyay in biyaha macaan maanta la helo oo aynu halka ka qaadno Laasciile ay tagaan insha Allah. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Professor Ahmed Jesto oo isna halka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay mashruucan iyo ahmiyadda uu leeyahay deegaanka Laasciile. sala soo tilmaamay goobtan waa Laasciile waxa ka mid tahay goobaha Somaliland aan weligood biyo helin Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta uu khalqay biyo heejin biyo qadar dhahaayeen biyaha macaan waa ka fog yihiin sala sheegay 20 kiiloomitir ku dhawaad ayay u jiraan marka biyo maanta in loo geliyo juhdi badan bay soo martay waxa mahaddeeda lahaa waxa weeyaan ragga deegaanka oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur iyo gudoomiyaha magaranaysa ayay gobolka oo runtii inta iyagu baahida keeneen soo indheeyeen noo soo gudbiyeen dabeetana waxa weey nagala hawlgalay gabagabadiina waxaa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka Maxamed Aadan waxaanu mahad celiyay cid kasta oo mashruucan ka gacan geysatay ugu celinaya inaan maanta goob joognahay in badan oo halkan ila joogtaan ay marxaati ka tahay inay ahayd maalmo ka hor sanadihii aynu soo dhaafnay ee abaaruhu ay jireen iyo tii doorashadaba inagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wada soconay inaynu goobtan nimi oo bulshada reer Laasciile iyo xagal iyo deegaamada kaleba waxa koowaad ay codsanayeen in loo sameeyo ay ahayd biyo maxaa yeelay biyuhu waa nolosha koowaad sida aynu garanayno وجعلنا الماء كل شيء حيا وحولبا بيها ugu horeeyo waa noloshii koowaad inaan aniga oo nool ka jawaabno oo xukuumaddu ay ka jawaabto oo wixii uu madaxweynuhu uu ku ballan qaaday ay fulaan ilaahay baan ugu mahad celinaynaa Imtiismaan Ali 5TV Berbera.